nabada odayaal iyo dhageystayaal bay makaya haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah liverpool oo taako loo dhigay norwich city oo rajada laga sii diray tottenham iyo konto isla kufay watford oo la arjumay ciyaaraha caawa dhacaya daawadayaal ha ka ilaawina channelka inaad subscribe saartaan mahadsanidin ugu horeynba kooxda casaanka ee liverpool ayaa taako loo dhigay taasi oo baryaha beel la raadinayay waxaana hal iyo Berdoga ku soo cunsay kooxda dacwooyinka Leicester City oo toddobaadkan gudihiisa ay kooxda Manchester City ku soo xabaalnolisay 3-6 guuldarada Liverpool ayaa ka farxinaysa kooxda Manchester City oo hogaaminaysa iyo kooxda Chelsea ee dhinaca dhibcaha ka siman yihiin horyaalkani waxaa 6 dhibcood oo nadiif ah ku hogaaminaysa kooxda Manchester City oo iyadoo muuqata mid aan la hor istaagi karin dhinaca kale kooxda Norwich City ayaa rajada laga siyaasay kadib markii kooxda Crystal Palace ay gurigooda ku booqatay ay ku martay sooreen 3 gool iyo waxba halkaasna ay ka soo laabteen iyagoo golada la laadinaya kooxda heerka caalamiga muuqatay ee Tottenham ayaa iyaduna ku soo kuftay garoonka dhibta badan ee kooxda Southampton iyadoo waagu ugu bariyay qanintay lixaad ee kala sareynta horyaalka Ingiriiska dhinaca kale kooxda Watford ee macallin Ranieri ayaa lagu hurgufay goolal afar kadib markii ay isku dardaareen kooxda Westham oo ay goolka kaga horeeyeen balse ay cadho ka qaadeen goolkaasi afarna ay ugu bedeshay caawana ciyaaraha dhici doona waxaa kamid ah Chelsea iyo Brighton oo ku wada ciyaari doona garoonka Stamford Bridge ee kooxda Chelsea Brentford iyo Manchester City oo iyaguna ku wada ciyaari doona malcabka ama garoonka aadka u dhibta badan ee Community Stadium ee kooxda Brentford barnaamijka ciyaaraha ee maanta ayaa halkaas inoogu dhamaaday daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh